Assalaamu calaykum dhammaantiin saaxiibada sharafta badan. Muuqaalkan waxaan doonayaa inaan ku sharxo qaybta shanaad ee taxanaha sayniska mala-awaalka ah ee loo yaqaan The 100. kadib shilkii soo degista ee markabkii Diana, boqolka qof ayaa aaday goobta uu shilku ka dhacay si ay u hubiyaan ma jiro qof ka mid ah dadkii markabka saarnaa oo badbaaday. Clark waxay eegaysaa burburka iyadoo isku dayaysa inay hooyadeed ka hesho meydadka gubtay. Raven waxay helaysaa kayd kiimiko oo aad khatar u ah oo keeni kara qarax waqti kasta. waxay dib ugu soo noqdeen xerada si ay u nabadgalaan kadib markii ay ka soo qaateen waxyaabaha waxtarka leh ee goobta burburka. Xerada qof kasta wuxuu ku taagan yahay cagihiisa wuxuuna sugayaa grounderiska inay ka argoostaan wixii shalay ka dhacay buundada awgeed. Ammaanka ayaa aad loo adkeeyey taasoo war xun u ah Octavia maadaama aysan dibadda u bixi karin si ay ula kulanto Lincoln. isla markiiba sawaxan ka soo yeeray duurka ayaa qof walba u digaya. waxay u hubinayaan si taxadar leh waxayna arkayaan Murphy oo aad u dhaawacmay. waxaa soo baxday in la afduubtay oo jirdil ay u geysteen grounderiska balse si uun bay ugu suurta gashay inuu ka soo baxsado. waxay soo geliyeen gudaha waxayna sugeen Bellamy si uu ugu sheego wixii la samayn lahaa marka xigta. Bellamy wuxuu rabaa inuu dilo ninka sidii ballanku ahaa laakiin Clark ayaa ka joojisay isaga. maadaama uu muddo dheer la joogay grounderiska waxay aaminsan tahay inuu faa'iido u yeelan karo si ay wax badan uga ogaadaan cadowga. dhanka kale, Jasper ayaa noqday hadalhaynta xerada kadib markii uu shalay ku dilay buundada laba ka mid ah grounderiska. waxaa la siiyey teendho weyn iyo mudnaan gaar ah dadka caadiga ah ka sokow. gabar ayaa bilowday inay shukaansato balse Jasper waa uu iska diiday. saaxiibkiisa ugu fiican Monty wuu ogyahay inuu weli sugayo Octavia oo uu u malaynayo inay tahay mid naxariis badan. waxay gelayaan muran kaasoo ku soo dhammaanaya markuu Jasper ku andacoodo Monty inuu ka masayrayo caannimadiisa sii kordhaysa. Raven waxay si joogto ah isugu dayaysaa inay xiriir la samayso markabka aag laakiin wax jawaab ah kamay helin. waxay u egtahay in qof kasta oo saarnaa uu dhintay. Clark waa tan ugu walwalka badan dadka ay jeceshahay. si lama filaan ah indhaheedu waxay bilaabeen dhiigbax aad uga nixiyey Raven. dibadda nin lagu magacaabo Connor ayaa isna isku arkay calaamad la mid ah. ilbiriqsiyo kadib koox dhan oo dad ah ayaa suuxay oo indhahoodu waxay bilaabeen inay dhiig baxaan. kooxda ayaa ah kuwii shalay soo badbaadiyey Murphy taasoo la macno ah inuu xerada soo geliyey nooc ka mid ah fayraska kaasoo qof walba saameeyey. Clark waxay la hadlaysaa Murphy laakiin wuxuu sheeganayaa inuusan waxba ka ogeyn fayraska. si loo joojiyo fiditaanka dheeraadka ah waxay go'aansadeen in hadda la karantiilo dadka cudurka qaba. isla markaaba nin ayaa dhulka ku dhacay oo kadibna dhintay. deegaanka ayaa hadda noqday mid colaadeed oo qof kasta uu daqiiqad kasta dhiman karo. Octavia waxay ahayd tii ugu horreysay ee xiriir la samaysay Murphy laakiin si uun bay iskaga difaacaysaa cudurka. weli Clark waxay rabtaa inay hadda ku jirto aagga karantiilka. maadaama Bellamy uusan ag joogin waxay weydiisatay Octavia inay u baxdo si ay u raadiso Lincoln sababtoo ah isaga keliya ayaa yaqaana daaweynta cudurka. Octavia waxay samaynaysaa sidii loo sheegay oo ay aadaysaa godkii ay ku kulmeen markii ugu dambeysay. Lincoln wuxuu ka hubiyey fayraska wuuna ku faraxsan yahay inaysan cudurka qabin. wuxuu daaha ka qaaday in haddii qofka cudurka qaba uusan isla markiiba dhiman uu ku fiicnaan doono saacado yar gudahooda sababtoo ah fayrasku ma aha mid dilaa ah. taas macnaheedu waa in Clark iyo kuwa kaleba ay ka fiicnaan doonaan waqti aan dheerayn. si kastaba ha ahaatee grounderisku ma siin doonaan fursad ay ku caafimaadaan. waxay qorshaynayaan inay soo weeraraan waa beriga maalinta xigta. Lincoln waxba kama qaban karo sababtoo ah xubnaha qabiilkiisa ayaa ku dhawaaqay inuu yahay khaa'in. boorsooyinkiisa ayuu guranayaa si uu u tago meel badda ka shishaysa. waxaa degan qabiil lagu magacaabo isbahaysiga kaymaha kaasoo soo dhoweyn doona isaga. wuxuu rabaa Octavia inay raacdo laakiin waa inay marka hore u digtaa dadkeeda. way kala tegeen kadib markii Lincoln uu ogolaaday inuu sugo inta ay soo noqonayso. kaamka dhexdiisa dad badan ayaa bilaabay inay qaadaan cudurka midba midka kale. markuu argagaxu bilowdo dadku waxay noqonayaan kuwo aan caqligal ahayn oo waxay bilaabayaan inay qori isku taagaan midba midka kale. Clark ayaa joojisay dhammaantood iyadoo ka dhigaysa inay ogaadaan inaysan isdili karin ka hor inta aysan grounderisku dilin iyaga. si lama filaan ah jilbaheedu way daciifayaan oo Finn ayaa qabanaya. Raven waxay isku dayaysaa inay soo celiso isaga maadaama laga yaabo inuu cudurka ka qaado taabashada laakiin Finn ma danayn arrintaas. waxay dareemaysaa maseer xad dhaaf ah laakiin kama celin. xeradu waxay ku jirtaa jahwareer markaas oo ay Octavia imaanayso oo ay ku wargelinayso qorshaha grounderiska ee ah inay soo weerarayaan aroortii. badankoodu waa daciif oo ma isdifaaci karaan taasoo xaqiijinaysa guusha cadowga. Bellamy iyo kooxdiisa ayaa bilaabay inay hub urursadaan iyo rasaasta balse waxaa kasii dhammaanaya baaruudii. dabadeed Finn ayaa la imanaya qorshe. wuxuu rabaa inuu qarxiyo buundada si uu hoos uga dhigo grounderiska ilaa galabtii. waqtigaas oo ay saamaynta fayrasku sii dhammaan doonto oo ay dad badan la dagaalami karaan dagaalka. Bellamy wuu ka shakisan yahay qorshaha laakiin khasaarahoodu waa lama huraan marka loo eego heerka uu fayrasku ku faafayo. Raven waxa ay sheegtay inay samayn karto walxaha qarxa oo ay ka heleen goobta shilku ka dhacay.
waxay si taxadar leh u soo qaaday dareeraha oo dib ugu soo celisay xerada iyadoo isticmaalaysa daasad iyo budada qoriga. waxay si taxadar leh u samaynaysaa bam khatar ah. haddii uu qorshuhu fashilmo ma heli doonaan baaruudda qoriga oo ku filan oo ay kula dagaalamaan Grounderiska. sidaas darteed waxay rajaynayaan inay nasiib yeeshaan markan. Bellamy wuxuu rabaa inuu bamka talaalo laakiin ma awoodo inuu sidaas sameeyo maadaama uu fayrasku qaaday. taa beddelkeeda Jasper ayaa la siiyey fursad. kuma kalsoona xirfadiisa toogashada laakiin waa qofka kaliya ee aan xanuunsanayn ee qoriga ridi kara. aagga karantiilka Murphy wuxuu dareemayaa si ka wanaagsan sidii uu markii hore ahaa. wuxuu caawinayaa dadka kale ee buka. aad bay ula yaabeen. waxa kale oo uu daryeelayaa Connor oo ahaa ninkii rabay in la dilo dhowr toddobaad ka hor. Finn wuxuu isu diyaariyey inuu aado buundada laakiin wuxuu ogaaday in Raven ay bam kala baxday. maadaama uu qarxi karo waqti kasta ma aysan rabin in nolosha Finn ay halis geliso. isaga iyo Jasper waxay si degdeg ah u mareen buundada. Jasper wuxuu weydiistay Monty inuu ku soo biiro laakiin wuu diiday isagoo weli ka xanaaqsan doodii ay hore u galeen. Raven waxay ku dhowaatay buundada markaasoo uu sankeedu bilaabay inuu dhiigo taasoo xaqiijinaysa inay iyaduna qaaday cudurka. in yar kadib si dirqi ah ayay u dhaqaaqi kartaa laakiin way ku adkaysanaysaa dhamaystirka hawsha. waxay si uun u soo gaadhay buundada oo ay bamkii rakibtay laakiin dib uma laaban karto. isla markaa digniin dagaal ayaa laga maqlay dhinaca Grounderiska. waxay daqiiqado u jiraan inay yimaadaan buundada. Finn wuxuu u ordayaa inuu badbaadiyo isla waqtigaas oo meel u dhow ayuu ku dhuumanayaa halka Jasper uu isu diyaarinayo toogashada walxaha qarxa. wuxuu la weynayaa dhowrka xabadood ee hore balse Monty ayaa u dhiibaya qori kale oo ku dhiirigelinaya. ilaa hadda Grounderisku waxay joogaan dhinaca kale ee buundada. toogashada xigta Jasper ayaa qarxinaya buundada isaga oo ka joojinaya weerarka. nasiib wanaag qorshaha waa lagu guulaystay. muuqaalka xiga Octavia waxay aadaysaa godka si ay ula kulanto Lincoln sidii ballanku ahaa. wuxuu isu diyaarinayaa inuu la tago balse waxay muujinaysaa inaysan rabin. waxay dareemaysaa mas'uuliyadda ka saaran dadkeeda kama carari karto iyagoo dhibaataysan. Lincoln qalbigiisu wuu ka xumaaday laakiin wuu ogyahay inuusan maskaxdeeda waxba ka bedeli karin. Octavia waxay macsalaameynaysaa Lincoln oo ay ku soo laabanaysaa xerada. Raven waxaa la keenay xarunta karantiilka si ay u nasato. markay iyada iyo Finn wada joogaan waxay u sheegaysaa in xiriirkoodu aanu shaqaynayn. Finn wuu jecel yahay iyada laakiin uma jecla sida ay iyada rabto. Finn lama uusan murmin isaga oo xaqiijinaya tuhunkeeda. Raven waxay u dhiibtay katiinkeeda iyadoo weydiisanaysa inuu ka tago. cabaar kadib way seexatay. labada qof ee kaliya ee ku jira xarunta karantiilka marka laga reebo iyada waa Connor iyo Murphy. Murphy ayaa si aamusnaan ah u ceejinaya Connor ilaa uu dhintay isaga oo ka argoosanaya sidii loola dhaqmay waagii hore. 2 maalmood ayaa ka soo wareegatay dhacdadan. Clark iyo Bellamy way walwalsan yihiin sababtoo ah Grounderisku kama argoosan taasoo macnaheedu yahay kaliya inay qorsheynayaan weerar weyn. waxaa intaa dheer hadda waxay xaqiijinayaan in qof saaran markabka aanu ka badbaadin shilka kadib. dabadeed waxaan aragnaa Kane oo miyir daboolan oo jiifa meel bannaan ah. si lama filaan ah hawo-mareennada ayaa furmaya iyagoo siinaya oksijiin ku filan. 2 maalmood kadib wuu soo toosaya oo uu bilaabaya inuu raadiyo dad kale. markabka intiisa badan wuu maran yahay laakiin wuxuu helay injineer la oran jiray Wick oo albaabka ku dhegay. wuxuu caawinayaa ninka isagoo albaabka ka furaya oo labadooduba waxay qorsheynayaan inay raadiyaan inta badbaaday. waxay heleen koox dad ah oo qol ku urursan. qaarkood waa dhinteen laakiin kuwa badbaaday ayaa ku biiray iyagoo u sii socday qolka caadiga ah. dhulka Octavia waxay ka shaqaynaysaa foornada hilibka. nin ayaa si taxadar la'aan ah u shiday holac sare taasoo keentay in dhammaan foornada uu qabsado dab. hilibkooda ayaa ku gubtay dhulka taasoo keentay dhibaatooyin badan. sahayda u hartay awgeed ma noolaan karaan wax ka badan 3 maalmood. Bellamy wuxuu ururinayaa koox 3 ah wuxuuna u dirayaa inay ugaarsadaan. waa inay aad uga taxadaraan Grounderiska oo dabinada u dhigi kara. Finn, Octavia iyo nin lagu magacaabo Miles ayaa midoobaya si ay cunto u raadiyaan. Raven way aragtay iyaga oo maseer ayaa mar kale ka buuxsamay. waxay rabtaa inay aado meel ka fog si ay maskaxdeeda uga saarto Finn laakiin Bellamy ayaa joojiyey iyada. maadaama ay iyadu tahay qofka kaliya ee xiriir la samayn kara markabka wuxuu rabaa inay xerada sii joogto. waxay ku heshiiyeen inay sameeyaan walkie-talkie si ay isula xiriiraan taasoo laga yaabo inay waxtar u yeelato mustaqbalka. kaynta dhexdeeda Clark iyo kooxdu waxay la kulmayaan raadadka xayawaan oo aad u yar. ka hor intaanay baaritaan dheeri ah samayn Falaartii Grounderiska ayaa ku soo dhacaysa Miles oo si xun u dhaawacaysa. labada kale waxaa afduubtay hogaamiyaha Anya. mar kale iyo Aag Ken wuxuu kormeerayaa hawo-mareennada wuxuuna ogaanayaa in qof jooga dhulka uu qolka kormeerka isticmaalayo qaybta kontaroolka. isaga iyo kooxdiiba waxay si degdeg ah u aadeen qolka laakiin waxay arkeen in waddadii loo mari lahaa ay xiran tahay qarax awgii. Wick wuxuu maamulayaa inuu xiriir la sameeyo dhinaca kale ee qolka oo uu ogaanayaa inay ka buuxaan injineerada iyo gudoomiyaha. Ken wuu ku faraxsan yahay in gudoomiyaha uu weli nool yahay laakiin waa inuu ka fikiraa qaab uu isaga iyo kuwa kale uga soo saaro qolka. gudoomiyaha wuxuu ka rabaa inuu daryeelo kuwa badbaaday. si kastaba ha ahaatee badbaadayaashu gacmaha ayay isqabsadeen si ay u furaan marinka oo ay u caawiyaan gudoomiyaha. gudaha xarunta Grounderiska Finn iyo Clark ayaa loo sheegay inay daaweeyaan gabar da'yar oo si xun ugu dhaawacantay qaraxa buundada.
dhakhtarka kooxda ee Lincoln wuu tegey, sidaa darteed waxay si ba'an ugu baahan yihiin caawinta Clark sababtoo ah iyadu waa dhakhtarada 100 qof. Haddii aysan badbaadin nolosha gabadha Finn waa la dili doonaa. Dhammaadka habeenka ugaarsatada waxay la soo noqonayaan cunto marka laga reebo Finn iyo Clark. Raven waxay u malaynaysaa inay xiriir sameeyeen taasoo iyada aad u sii dhibaysa. Mar kale iyo aag Ken wuxuu badbaadinayaa gudoomiyaha iyo nolosha injineerada. Waxay helayaan ku dhawaad 1000 qof oo badbaaday. Waxay u malaynayaan in dhammaan kuwa kale ay dhinteen. Wiig waxa kale oo uu ogaaday inay qasab tahay inay jiraan badbaadayaal ku sugan waaxda adeega kuwaasoo uu ka tegay markabkii Diana. Ken wuxuu tegayaa inuu sameeyo xoogaa qodis ah wuxuuna helayaa koox dad ah. Abby ayaa ka mid ah. way nooshahay laakiin aad ayay daciif u tahay. Dhanka kale Clark waxay ku dadaalaysaa sidii ay u badbaadin lahayd gabadha yar qalabka caafimaad ee ay haystaan. Si kastaba ha ahaatee aad bay u fogaatay si loogu soo celiyo qalabkii caafimaadka ee yaalay. Aakhirkii inanta ayaa dhimatay, Finnna waa la kaxeeyey si loo dilo. Markay keligeed ku soo harto Grounderiska way mashquulinaysaa oo waxay maamulaysaa inay baxsato. Isla mar ahaantaana dadka ku jira xerada ayaa u dhaqaaqay inay raadiyaan labada qof maadaama aysan weli soo laaban. Waxay isticmaalayaan wiki-talkie cusub si ay isula xiriiraan oo ay u kala baxayaan dhowr waaxood. Si lama filaan ah Monty wax buu arkay oo naxdin ayuu la istaagay. Meel kale Bellamy wuxuu helay Miles oo dhaawacmay kaasoo sheegay in labada kale la afduubtay. Ilaa hadda Monty wuu lumay oo telefoonkiisa wuxuu yaalaa dhulka. Muuqaalkii ugu dambeeyay waxaan aragnaa Clark oo u soo ordaysa xerada, laakiin waxay ku dhacday dabin oo geed ayay ka soo laalaadaa. Muuqaalka halkan ayuu ku egyahay. Fadlan taawo subscribe iyo like haddaad jeceshahay muuqaaladan oo kale. Kulanti dambe oo aad u xiiso badan. Mahadsanid.